السلام عليكم soo dhawaada asxaabi waa tahay daawadayaal qaybtii labaad ee barnaamijkeena taxaniin dagaalkii labaad adduunka waxay noo marisay Franklin Roosevelt mid ka mid ah madaxweynayaashii ugu waaweyn ee Mareykanka soo mara waxa uu Mareykanka ka saaray xaaladii dhaqaale xumo ee dunida iyo dagaalkii labaad ee dunida markuu dhintay Roosevelt waxa xilka la wareegay Harry oo ahaa madaxweynihii saxiixin Japan hubka nukliyeerka lagu dhufto 3 waxa uu ahaan jiray xogayihii xisbiga anti-wadaagga ee Ruushka waxa uu hogaaminayay Ruushka isagoo Ruush ka saaray dagaalkii adkaa uu la galay Jarmalka markii uu ku guuleystay dagaalkii waxa meelo badan ka aasaasmay dawladaha ay maamulaan xukuumadaha anti-wadaagga 4 Faransiiska Charles de Gaulle waxa uu hogaamiyay Faransiiska xorta ah waxa uu hogaaminayay iska caabintii Faransiiska ee ka dhanka ah Jarmalka daawade wadamadii kale ee isbahaysiga ku jiray maxaad kala socotaa China waxa uu weeraray dhul badan ka qabsatay Japan China waxa uu isbahaysiga soo galay kadib weerarkii dekada Biro waxa xilliga China hogaaminayay Mao Zedong quwadaha isbahaystay waxa kale oo ku jiray Australia New Zealand Canada Netherlands Yugoslavia Belgium iyo Greece laakiin waxa jiray wadamo yar intaana ka badan oo iyaguna isbahaysiga ku jiray macluumaadka kale xiisaha leh daawade Ingiriiska Ruushka iyo Mareykanka waxa mararka qaar loo oran jiray saddexda waaweyn the big 3 markii China ku soo biirayna waxa loo oran jiray afarta booliska the four policemen afarta booliska waa kuwaas ururka qaramada midoobay sameynta hore ururka qaramada midoobay waxa saxiixay 12 wadan kowdii January 1942 laakiin 24 October 1945 konton wadan ayaa saxiixay ahdiga qaramada midoobay Winston Churchill waxa laga hayaa beentu waxay gaadhay adduunka barkii inta aysan runta hoos gunteeda xidhan daawade quwadiidu dhaxaadka Dax Powers sidaynu horeba u sheegnay dagaalkii labaad ee dunidu waxa uu dhexmaray laba kooxood oo wadama quwadaha isbahaystay quwadaha dhaxaadka quwadaha dhaxaadku waxay ahaayeen Jarmalka Talyaaniga iyo Japan sameyntii quwadaha dhaxaadka daawada maxaad kala socotaa isbahaysigana waxa uu sameysmay 1936 ugu horeyntii 15 October 1936 Jarmalka waxa uu heshiis saaxiibtinimo la saxiixay Talyaaniga kaasoo noqday dhaxaadka Jarmalka iyo Talyaaniga kelmadda dhaxaad waxa keenay Benito Mussolini isagoo uga jeeday isbahaysi waqti yar kadib 25 November 1936 Japan iyo Jarmalku waxay kala saxiixdeen heshiis hanti-wadaag nacayb ah heshiiskan waxa la rabay in laga hortago faafitaanka nidaamka hanti-wadaagga Jarmalka iyo Talyaanigu waxay mar kala galeen heshiis midkii hore ka awood badan 22 May 1939 heshiiska markii dambe waxa loo oran jiray heshiiskii saddex geesoodka ah oo waxa ayna ku soo biirtay Japan 27 September 1940 saddexda quwadood ayaa ka qayb galay dagaalkii labaad ee adduunka iyagoo isbahaysanaya hogaamiyaashii quwadaha dhaxaadka maxaad kala socotaa daawade saddexda wadan ee isbahaysigan ku jiray waxa maamulayay hogaamiyaal kaligood talisa waxayna kala ahaayeen Germany Adolf Hitler waxa uu hogaamiye ka noqday Jarmalka waxa uu hogaamiyaha Jarmalka noqday 1933 waxa uu isu bedelay kaliya talis awood badan Jarmalka oo dhan gacanta ku qabtay waxa uu ahaa nin aad u necab Yuhuudda waxa uu rabay inuu Jarmalku ka safeeyo dhammaan dadka taagta daran iyo waliba inuu Yurub oo dhan qabsado 2 Italy Benito Mussolini waxa uu ahaa kaliya taliye cajiiba waxa uu keenay fikradda faashilistnimada oo macnaheedu yahay in wadanku maamulo hal hogaamiye hal xisbi waxa uu dhiirigeliyay iyo mid lagu daydaba uu ahaa Adolf Hitler 3 Japan boqor Hirohito waxa uu ahaa boqorka Japan 1926 ilaa 1989 waxa uu Japan si maamulayay xitaa dagaalka kadib markii ugu horeysay ee codkiisa la maqlo waxay ahayd markii uu raadiyaha kaga dhawaaqay Japan ay isdhiibtay 1945 daawade wadamadii kale oo dhaxaadkan ku jiray maxaad kala socotaa Hungary waxa ay wadanka afraad ee soo galay heshiiska saddex geesoodka ahaa Hungary waxa ay door weyn ka qaadatay gelitaankii uu Jarmalku gudaha u galay Ruushka 2 Bulgaria waxay ugu horeyntii ku jirtay dhaxaadka balse isbahaysigan ay la safatay kadib markii uu weeraray Ruushka Romania sidii Hungary Romania waxay la safnay dhaxaadka waxay Jarmalku u fududeysay inuu galo Ruushka balse gabagabadii dagaalka waxay Romania ku biirtay isbahaysiga Finland marnaba ma saxiixin saddex geesoodka ahaa laakiin waxay ka garab dagaalamaysaa wadamada dhaxaadka daawada macluumaadka xiisaha leh maxaad kala socotaa heshiiskii xadiidka markii hore waxa la oran jiray heshiiskii dhiiga balse magaca waa la bedelay si aanay dadku u nicin Mussolini
waxaa la odhan jiray Deus hogaamiye. Hitlerna waxa uu la baxay Führer. Mussolini waxaa la odhan jiray Deus hogaamiye. Hitlerna waxa uu la baxay Führer oo iyaduna macnaheedu yahay hogaamiye. Udub dhaxaadku waxay libintii ama guushii ugu sarreysay ee dagaalkii labaad adduunka ka gaadheen waxay ahayd markay ay qabsadeen badi Yurub, Koonfurta Aasiya iyo weliba Afrika. markii Talyaanigu qabsaday Ethiopia iyo Albania, reer Talyaani arrintaa aad ayay ugu farxeen, waxayna u maleynayeen inay soo noqotay boqortooyadii Talyaanigu. qaybteena saddexaad inta ay noogu joogto la soco qaybta afraad. fiidiyowga like saar, aad baad mahadsantihiin, share garow. Assalaamu calaykum.